odayaasha haweeneydii uu Hargeysa ku cunay libaaxa oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay raaligelin ka bixiyeen hadal hore uga soo yeedhay haweeneydan waxaanay sheegeen in xaaladeeda caafimaad ay si fiican gacanta ugu hayaan maamulka beerta libaaxu waxaynu ku sugannahay meeshii arintu ay ka dhacday gabadhii libaaxu cunay ilaahayna uu ka badbaadiyay arinteedaynu ku sugannahay waxaanu nahay odayaashii xagga gabadha ka socday saadarteed waxaanu isugu nimid oo maanta ka hadlaynaa waxa weeye arin maalin dhaweyd oo fogeyn dhacday oo TV inta laga duubay warbixin laga qaaday warbixintaasaan markaa ka daba tegaynaa taasoo dhaliil ay markaasi u arkeen iyagu sida ay dhageysteen reerka markaasi libaaxa iska leh arintii markii aanu isla eegnay xaggeeda iyo xaggooda iyo dhammaan baanu eegnay waxaanu isla qaadanay in arintii dib loo saxo oo odayaashoodii iyo odayaasheediiba sidii wanaagsan iyagu marka horena ay gacanta ugu hayeen gabadha iyaduba ay ka warantay dhakhtarkeedii iyo dhakhtarkii hore markay geeyeen iyo dhakhtarkii dambeba caafimaadkeedu gacantay ku hayaan way daba socdaan inta agoodooda ilaahay baana u keenay dhakhtar wixii ay qabtay dambena marka ay bugsato odayaashoodii waanu ka wada hadalnay in la dhameystiro oo si wanaagsan oo sharaf leh oo gobonimo leh ay u dhameeyaan saasaanu markaasi annaguna u nimi wax allaale wixii kale dhakhtarana iyaga ayaa mas'uuliyadeeda qaatay insha Allah ilaahay waxaan uga rajaynaa annaga iyagaba dhamaanba in ilaahay iyadaba ilaahay noo caafiyo ilaahay noo dhameystiro badii ma taqaana mushkilad ma lahay raali hada hadii waxaan ka hadlo anigu waxaan kuma hadlin raali hada aatiri alxamdulillah anagu saas u raali baan nahay si fiican waa noo socota arintan ha isku ilaashano saas dhahay hadii alla ku roon yahay Allah idinku asturo halkii uu ka wada dhinaca kale waxaa hadashay Caasha oo haweeneydii libaaxu waxyeelada gaarsiiyay waxaanay bixisay raaligelin iyadoo sheegtay in ay khaldantay raali hada aniga khaldamay dhakhtarkii waa la daweeyay wallahi sidii hore waan ku sheegay ka joogo waa la yagi waan hay ilaahay caafimaad baan ka sugaya Maxamed Midh Qursame Ariel TV Hargeysa.